السلام عليكم وبركاته ليال هذا وحنا جوجا سعيد فادي أو CEO وداكسن شركة وداكسن أو شركة دكد قرعة مسؤولك دسمريرة مركا لكن سعيد فادي أنا سودوينا إستجنا نحن لو وداقيا وحيابا بروسس كي سومرين سري فكرة دكد قرعة فكرة أهان حق جيان أي نقطة بروجكت لطابون كرو أو مانت عندهن كوارجنة مركا تاسان رباين لو داقو مركا وقوري سوحا رباين واكي سعيد فادي سودوية aad baa umahadsantahay Axmed runtii farxad bay noo tahay inaan kugu soo dhaweyno deegaanka Garacad gaar ahaan meesha uu ka socdo mashruuca dhismaha dekedda Garacad runtii Axmed oo ah nin dhalinyaro ah oo ku soo koray qurbaha laakiin jecel horumarada ka socda wadanka Soomaaliya oo dalkiisa ah inuu waxna ka duubo adduunkan la wadaago in wadankiisa ay ka socdaan ama ay ka jiraan mashaariic horumarineed oo tusaale u noqon kara guud ahaan gobolkan Geeska Afrika iyo guud ahaan qaaradda Afrika. Axmed walaal haddaan kaaga warramo mashruucan dhismaha dekedda Garacad wuxuu ahaa mashruuc muddo dheer ay ku taamayeen dadka degan guud ahaan gobolkan Mudug oo ay islahaayeen mar waa inaad dekeddaas Garacad aad hirgelisaan يعني تاريخ سان كوهينو وأما ما عرفت راد كده وموضوع مشروعا واحد سكودي واحد سكودي على السمايي اللي كي دولته ريدك واللحن كي إنتان ما عرفت كوعان كوسان لوريجن أما دولتي ملترية اسمه وطن الصومال لوريجن وقت هذا سامنتي سلا السمايي ومالي سيرفيج اللي جو السمايي حدا ما عرفت وين موضوعان أو لا دقي شبكي ما عرفت لا دقي إلا هذا ما عرفت بيمسكي لقيت هاي إن كده لقى سمايو هو دولتي ريت كويس سمايسي بعد دولي مش كتاجن دولتي ريت ككدي وها أيضا الإسكودي اللي بنتنا على سمي الله سجاشني سديد دي اللي دولة الفدرال كا أي مارتي الأساسي واختيار أصلا وإسكودية على سمي لكن مشروعا هذا الصعدة ورياضة مدة دheer dadku taamayeen lagu hirgeliyay wuxuu soo bilowday sanadkii 2016 oo ganacsato u dhashay deegaankan oo reer Puntland ay markii hore inta isu yimaadeen dhahan si ay mashruucaas u maalgashan lahaayeen iyagoo ka arkay meeshan in mashruucan ay u diyaarsan tahay markii hore waxaa laga bilaabay feasibility study in lagu sameeyo horta bal shaqada meeshaas laga qaban karo company Chinese ah oo dekedda Djibouti qaybna dhisay shaqo noocaas kale oo qabtay markii hore la heshiiyey nimanka Chinese ka markii halkan yimaadeen waxa uu soo baxay saddex arrimood kow in meeshan ay horta in meeshan istiraatiiji ahaan ay ku habboon tahay in deked laga sameeyo labo in materialka lagu dhisi lahaa laga heli karo deked agteeda in moolka dheer ee maraakiibta ku soo xirtaan lagu gaari karo wax ka yar half a kilometer ama 500 mitir in lagu gaari karo marka intaas kadib markay ogaadeen waxay sameeyeen recommendation ah in meeshan laga dhisi karo deked qiimo yar ku bixin kara arrintaas oo runtii dhiirigelin u noqotay dadkii ganacsatada ahaa oo mashruucan soo abaabulay marka kadib 2016 kadib waxaa la galay in dadkii ay ganacsatada la balaariyo fikirkii la balaariyo ilaa iyo heer Puntland la gaarsiiyo ganacsatada isu timaado dad kale oo khibrad fikirkooda la dhageysto kadibna warbixintii iyo kulli markii la soo bandhigay go'aan waxaa la qaatay in dowladda Puntland la wadaago madaxweyne markaas Puntland meesha madaxda ka ahaa Dr. Abdulle Maxamed Gaas baa fikirkii la wadaagay isaguna waxa way arrintii waa soo dhaweeyay markaas kadib waxaa la sameeyay company gaan wadaagsan oo loogu talagalay mashruucaas fulintiisa company-gan waxa weeye waa special purpose company loogu talagalay ama company loo sameeyay fulinta mashruucan
intaa kadib heshiis baa waxaa kala galay kambanigii la sameeyey oo ay ku midaysnaayeen ganacsatada Puntland markaas iyo dowladda Puntland oo concession in dowlad kambanigan uu maaragtay maalgeliyo mashruucan dhismaha dekeda Garacad dowladda Puntland ay ogolaansho siiso iyo muddo kambanigani dekeda ku dhisayo ku operate gareynayo oo kaga hay'adda gacanta kayntiisa maamulka maamulkiisa haynayo in muddo lacagta ka gashay markii uu soo noqotana uu markaas kadib dowladda lagu soo wareejinayo ujeedooyinka laga leeyahay waxa weeye in ganacsatadu ay maalgashadaan ama dadka xoolaha haysta ka maalgashadaan oo maaragtay waxooda wadankooda dib u celiyaan in maaragtay horumarinta ay ka qayb qaato mashruuca horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka si dhalinyarada iyo dadka ganacsatada iyo dadka deegaanka degan shaqo abuur iyo noloshooda kor loogu qaado iyo in maaragtay ay Puntland yeelato deked labaad oo caalami oo gaar ahaan si gooni loogu dhisaangareeyay ama loogu dhisay inay ka soo degi karaan containerada marka Garacad waa container port ama dekeda ay ku soo xiran karaan maraakiibta containerka qaada waxyaalaha kale oo daraasadii horey loo sameeyay ka soo baxay waxaa ka mid in market catchment-gani dekedan ay yeelanayso aad u ballaaran yahay maadaama ay ku taal bartamaha dekeda Muqdisho iyo dekeda Boosaaso oo isu jira 1400 oo kilomitir bartankeeda ku taala marka waa qiyaas ka dhinac kasta waxa ka adeegan kara gobolada dhexe oo dhan Puntland waxa ka adeegan kara maaragtay dowlad deegaanka Soomaalida waxa ka adeegan kara wadamada maaragtay deegaanada ka shaqeeya oo Ethiopia oo dhan marka waa deked meel istiraatiiji ah ku taal dadka deegaanadaas degan oo dhanna ay maaragtay si fudud uga faa'iideysan karaan dekeda laba qaybood baa looga faa'iideysan karaa ama maaragtay laba qaab dhinaca dadku ay yaqaanaan oo commercialka oo in waxna laga dhoofiyo oo dadkan yani deegaanadan oo dhan ama xoolo ama qudaar ama warshado haddii insha Allah mustaqbalka waxa loo yahay ay sameeyaan ay dibadda ugu dhoofiyaan midda kalena waa in wax lagala soo dego ama import export oo wixii maarta ayaguna ay dibadaha suuqa caalamka ku xirmaan maraakiibtuna sidoo kale waa isticmaali karaa waxyaalahan transshipment-ga oo inay containerada kala wareegsadaan isku soo xirtaan balbaliyaan laakiin qaybta ka weyn oo dekedani ay saafgaraynayso waxa weeye ka faa'iidaysiga khayraadka badda oo meesha dadkeenu aysan si fiican uga faa'iidaysan wadankeenu wuxuu hodan ku yahay kalluunka iyo khayraad kale oo badda ama waxaa loo yaqaan blue economy-ga marka waxaan rabnaa in si weyn looga faa'iidaysto khayraadka badda waxa mashruucan ku lamaan oo la mataana ama mashruuca laftiisaba waxaa la yidhaahdaa Garacad commercial and fishing port ama dekeda Garacad caalamiga ee kalluunka ganacsiga iyo kalluunka marka dhinacan ganacsiga export importiga kaliya maahan waxaan rabnaa waxa weeye in dadka Soomaaliyeed khayraadka kalluunkana ay ka faa'iidaystaan waxaan samayn doonaa haddii alla idmo qaboojiyaasha kalluunka lagu keydin jiray iyo suuqii haddii alla idmo kalluunku ay ka ganacsan si maaragtay kalluumaysatadeenu ay halkaan uga helaan suuq ay u maaragtay waxa ay soo qabsadaan khayraadka baddeena ka buuxa ay tartiib u soo qabsadaan halkaan ay isla markaba lacagtooda cash looga gato lagu kaydiyo hadhowdina laga dhoofiyo oo meelo kala duwan oo adduunka ka mid ama wadamadan Ethiopia oo iyo wadamada kale aan badda lahayn ama suuqyada kale oo caalamiga la geeyo marka mashruuca wuxuu ka kooban yahay hirgelinta casriga oo leh qaybtii kalluunka ama qaboojiyaasha kalluunka storage-kii ama warehouse-yadii haamihii shidaalka maxjaro meelihii kale oo free zone-ka ahaa oo kambaniyyaashu ay degi lahaayeen kala duwan maaragtay containeryaalkii containerada kusoo degi kara lahaayeen yani waxyaalahaas oo dhan buu mashruuc ku waxaysan yahay oo dekedan casriga ku lamaan waxaa kaloo mashruuc qayb ka hirgelinta wado isku xirta Garacad Gaalkacyo
iyo borderka magaalada ku taala ee Galdogob ama Tuurdibi si maaragtay la isku xiro original maaragtay u noqdo oo gobolkan geeska Afrika oo Ethiopia iyo ka dambeeya ay uga faa'iideystaan mashruuca marka waxaan geenaynaa wadadaas ilaa iyo Tuurdibi dhinaca kalena ilaa hadda wax dheer bay soo maraysaa marka wadada isku xiranto waxay noqonaysaa corridor weyn oo garacad corridor la yiraahdo mashruucana wuxuu yahay Niger waa interregional waa gobolka inuu ka faa'iideysto haddii alla idmo marka waa mashruuc fishing weyn leh oo haddii alla idmo aan hadda halkan ku dhammaanayn waxaa laga yaabaa 10 soo socda 20 soo socda balaankiigu ku qorshaysan yahay laakiin ujeedkaygu waa inaan samayno corridor lamida corridorada hadda ama Djibouti corridor ama Berbera corridor ama Garacad corridor oo ku soo kordhay geeska Afrika oo si weyn looga faa'iideysto marka aad iyo aad baa umahadsan tahay intaas way mashruuca warbixintiisa ما شاء الله aad iyo aad u mahadsantahay Saciid aad iyo aadna ku faraxsanahay xitaa sida la wadaagay waxa laga dareemaa qof passionate oo de project-kan aad yani u damqanay sidoo rabtidina dadkaaga horumar u keentay taasna wax aad iyo aad lagu farxo ani door su'aalaan ku hayay waxa mid kamid waxa tiri ganacsatada gobolka ayaa isku imaaday oo isku keenay fikirka in la maalgeliyo marka taa fikrada la imaaday processka la soo maray maxaa la sameeyay ma tender la sameeyo kadib bidding process la sameeyo si shirkad ama dawlad kala maalgelin karto oo sidii ku dhisto dekada tamaana fahansiin kartaa adigoo maanta yani markii hore saan ku sheegay waxa la sameeyay company-ga wadaagsan waxa weeye waa company special purpose company ama company gaar oo loo sameeyay fulinta shaqadan koridorkaas garacad inuu fuliyo ganacsadii marka akoonadoodii iyo shuruucdii iyo company marka la dhamaystiray lacagtoodii Soomaalida ganacsadii Soomaalida daraan markii hore waxaa bilaabay ganacsadii reer Puntland baa lacagtoodii nin walba share ku gadan lahaa company-ga share ahaan baa loo sameeyay waxaa la yiri 500 oo share oo kale tusaale ahaan oo kale oo share iyo share B oo share furan kamid laba share buu leeyahay share A iyo share B share oo kale waa hadda waa 93750 500 oo share la iibiyay marka share kaasa hal ganacsadii company kasta intii uu soo gadan karo ka iibsaday halkii share waa 93750 dollars about 100,000 wax dhiman oo US dollars laakiin kana waxa loo talay dadka dhalinyarada ka shaqeysta dadka ganacsatada yaryar halkii share waa 2500 qofku laakiin 10 share uu gadan karo 25,000 ama uu gadan karo 4 share oo $10,000 dadka marka waa loo soo bandhigay laakiin ganacsatada hadda ka qayb qaadatay iyo dadka ka qayb qaatay waa Soomaalida meel ay joogtay waxa ka qayb qaatay Soomaalida Djibouti degan kuwa Somaliland degan kuwa dowladda deegaanka Soomaalida degan kuwa degan Nairobi iyo maartay waqooyi galbeed Soomaaliya waqooyi bari Kenya waxa ka qayb qaatay Soomaalida maartay bartamaha Soomaaliya iyo koonfurta Soomaaliya degan waxa si xoog uga qayb qaatay ganacsiga Soomaalida ku nool qurba joogta oo runtii aan oran karo boqolkiiba 60 ama 65 dadka ka maalgashaday waa dadka qurba joogta mashruuca ما شاء الله marka oo adigoo kala oo lacagtooda gashaday waxaan rabaa wadankooda inay maalgashaan marka mashruucan sidoo kale faa'iidooyinka uu leeyahay waxa weeye haddii insha Allah waad aragtay hadda meel gabagaba uu maraya qaybtii ugu horeysay afartii jambi laba waaba dhamaatay oo complete midna waxa weeye badda buuxinteeda dhamaatay midna badda buuxinteeda kala baran oo waxaan aragnaa labadaana waa 40% complete labana waa 100% complete arrinta wadadana meel fiican bay noo maraysaa marka inta lagu guuleysto Soomaalidu mashruucani wuxuu noqonayaa mashruuc u horseeda in dadka ganacsatada Soomaalidu ay maal gashadaan kaabayaasha dhaqaalaha sida garoomada diyaaradaha wadooyinka oo wadooyin badan oo tool in wadankeena ku aragtid baa laga yaabaa iyo dekadaha oo aan u baahanahay dekada fara badan xeebta ugu dheer Afrika waan leenahay 3,300 ka badan oo kilomitir marka dekada badan bay Soomaaliya u baahan tahay si dekadahaas ay uga faa'iideystaan wadamadaas nagu xeeran oo dhan dawladdu cashuur way hesho dhalinyaradu shaqo uga helaan khayraadka badana uga faa'iideysano wadankeenu
بدنا نوفر كريه حتى إنه عن خلات كان كلا كفاية ليس لكن وأنا من الغرفة أن بلو إيكونومي أما بدنا نقالها عيلة هاي أما سيالها خيرات كبدل لو كفاية ليس كنت كيف نفهمان سيتها وفهمان أما الكهر وأنا برسوين جيتري بورتس وأنا هنا قارهان بورتس وحوي مرن وحكونا لنا بير استراتيجية halkaas maraakiibta hadda marinkaas maartay madha waxa weeye lagu qiyaasaa 65 kun ilaa 70 kun oo markab baa sanadkii lagu Soomaaliya hadda 5 kun oo markab kusoo leexato inta kaliya naga badan degadayna noolaa 5000 markab hadda sanadkii lagu soo leexato intaas aan naga wada badan oo dhan 65 kun 60 kun baa naafto hadda laakiin 5 kun oo kamid lagu soo leexato kaliya hadda dekadaha maartay 5 aan leenahay laga soo bilaabo Berbera بوساسو قرعات مقدش كسماي سكوتر 5000 هذين وصلوا حتى انت كلي انا قبل او هو برنامج سهريا انا صار كرين كريم ملايين تدقوا افريكا ومارت لان لو كاس كده هذين نو يمالان وملا جناحسان او جناحسيه مسكو حرم الصومالي ودد جناحسيه انت برنامج شركه ادو في عام marka su'aashaadi ahayd tender miyaa la bixiyay tenderka waxaa la bixiyey oo markii maaragtay la qaadanayay kambaniga hadda Turkiga halkaan dhisa markii la kala dooranayay dhowr kambani baa la kala doortay sidoo kale markii dhisaanka la sameeyay kambaniyaal baa ayagana la kala doortay labadii kambani oo midna uu yahay dhisaankii iyo supervisionkii iyo qaybta engineering qaabilsan yahay iyo kambani contractor oo arrintan fuliyay oo TTN la dhaho oo Turkiga labada kambani baa la qaatay labada kambani hadda shaqadii maaragtay mas'uuliyadeedii منه هو عقاب سنة قيمة إنجنيريكا يسوبرفيشنكا منه هو عقاب سنة هي مشروع فلنتيسي مرة مال آدي آدم بفهم بمرسى كان عستدي مال بشتان آدم بفرح سنين لكن مال بشتان مشروعا مرة إن شاء الله بريسي كلام دون إن شاء الله كوجو ليسن دون تاسون ندو عنا محاك أوران لهاد قبلة جاران صومالي جودهاد أنا دكذا لهين محا أدفايسين لهاد sida gobolada hadda مثلا awdal ama meelaha kale hadda dekadooda xiranta ama dagaalada saameeyeen wallahi isku day badan baa jira mashruucani waxa weeye indhihii Soomaaliya ganacsatada Soomaaliya u furay laakiin wali waxa la fiirinayaa bal waxa la leeyahay casharka laga bartay horta kan hala lesson learned hanoo noqoto dad badan baan soo fiirinaya kuwa badan baa noo yimaada oo fiiriya mashruucan oo waxa weeye qaabka aan u bilownay iyo qaabka hadda aan u wadno runtii rabo inay cashar ka bartaan marka waxaan rajaynayaa marka u horeysa oo la furo kasoo mar hore hadda ilaa 6 marka ay kusoo xirteen dadka arkeen in fikirkan fikir shaqeynaya uu yahay haddana waxaan rabnaa marka uu si rasmi ah u shaqo bilaabo in uu maaragtay furi doono albaab weyn oo ganacsatada Soomaalida potential-kooda ay ku maalgashanayaan wadankooda oo furo noqdo oo mashaariic la mid ah mashruucan oo kale meelo badan oo Soomaaliya laga fuliyo waxa dekada badan baa maaragtay hadda xiis iyo meelo badan hobyo meelo badan baa dadku hadda maskaxda ku hayaan oo rabaan inay fuliyaan laakiin waxay weli soo fiirinayaan bal mashruucan dhismaha dekada garaaca meesha ku dambeeyo marka hadda oo almost anagu aan meesha completion line aan taaganahay meesha aan ku dhamaanaysay aan taaganahay didiiro badan baa ganacsatada Soomaalida soo gashay waxyaalo fara badan baa laga fikirayaa waxaan rajaynaynaa saan hore ku sheegay in la arki doono wadooyin la maalgashaday aeroboorto la maalgashaday dekada la maalgashaday dalkeena oo dhan oo ganacsatadu sida noqonaysa isu xoogooda iyo dhaqaalahooda isu geystaan ay wadankooda iyo kheyraadkooda ka faa'iideystaan meesha lacagooda geeli lahaayeen wadamo kale ama ku maalgashan lahaayeen ama bahalkeysan lahaayeen Soomaalidu waxay leedahay sidoo kale aan ogaanay amal uu yahayba dad badan oo qurba jooga oo potential investors ah lacagtu marka ay dawladda ka timaado Mareykan iyo Yurub iyo inta laga soo diro wadankaaga ku maalgashatay waxay la mid tahay foreign currency ama foreign investment oo kale dadkaaga ay maalgashadeen bisna waa lacag wadanka soo gashay marka way ka waxtar badan tahay lacagtii awal wadanka taalay oo dib wadankii loogu celiyay maxay ay malaayiin dollar baa ku soo galay wadankii marka si fiican buu dhaqaalihii localka ah u dareemaya ama u kobcaya ما شاء الله إلهي waxaan u rajeynayaa inaad ku guuleysatiin
waayo Soomaalida kalena waxaan iga baranaya inta kalena dee waad horumari dalkeena u keenaysaa waayo anina waxaan wax muhiim ila tahay maadaama dee dalkeena iyo beesha caalamka iyo maalinyaanigaas ka dhammaani waayeen oo dadkana xitaa annaka naga faa'iidaystaan oo magaca Soomaali ku qaraafaystaan iska dhigan billion Soomaali ku caawinay kadibna ugu dambeystii xitaa malaan 1 milyan aan dalka soo gaarin marka maskaxda gaar ahaan maskaxda qofka ayaa isbedelisaayo qofkiina wuxuu noqonayaa qof naftiisa ku kalsoon hadduu arko walaalkiisa Soomaali inuu isagu wax dhiste oo lacagtiisa dalkiisa ku maalgeliyay marka aad iyo aad u mahadsantahay Saciid walaal aad iyo aadna u mahadsantahay waqtiga qaaliga maantana si adiga iyo tiimka wadaagsan mar kalena waxaan rabaa in nagu naqo soo dhaweyntiina qaaliga insha Allah reer Mudug waxaan u jeedinayaa guul جزاكم الله خير.